sayga iyo xaaska marka ay guriga wada joogaan ama wadada ay marayaan ama meel kaleba ay joogaan waxa wanaagsan kalimaadka ay isticmaalayaan inay ka fiirsadaan isla mar ahaantaana kaalin weyn ka qaadanaya horumarka iyo kor u qaadida xiriirka jacayl ee lamaanaha isqaba ka dhaxeeya macaanto xabiibti kalimaad oo fudud oo markaasi furo u noqon kara qalbiga xaaska dhimrinta iyo dareenka jacayl waa waxyaabaha ay aadka ugu baahan tahay haddii adiga marka kalimaadkaasi iyo wax la mid ah aad isticmaashid hadal dabacsan aad isticmaashid hadal la soo xulay aad isticmaashid oo aadan xaaskaaga kula hadlin sida dadka banaanka aad kula hadlaysid oo kale oo aadan xaaskaaga kula hadlin taagtaag ama hadal adag ama hadal dhaawac leh ama hadal niyad jab keenaya waxyaabahaas oo dhan waa laga fogeeyaa xaaska waxay u baahan tahay hadallo ka buuxaan dhimrin hadallo ka buuxaan dareen jacayl ayay u baahan tahay xaaskaaga marka madax aad ka dhunkatid ajar badan ayaad leedahay haddii garabka aad ka qabsatid sidaas si la mid ah haddii dhexda aad ka qabsatidna kaba sii fiicanba dembiyada laga dhaafaya ajra lagu qoraya waxyaabahaas oo dhan marka ajarkaas iyo dembi dhaafkaas iyo waxyaabahaas oo dhan waxa la dhiirigelinaya marka xiriirka jacaylka ama xiriirka lamaanaha ka dhaxeeya oo cadfiga iyo xanaanta ka buuxa in kor loo qaado marka